Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabta igu xiran channelkayga nalka nolosha. Waa walaashiina markale waxaan ii wadaa muuqaal cusub. Maanta maxaan rabnaa inaan karsano qado aad iyo aad u macaan. Qadadaas oo ka kooban bariis, biryani iyo chicken. Marka waxaan leeyahay isla socod wanaagsan. Waxaan filayaa insha Allah inaad ka faa'iidi doontaan. Asxaabtayda igu xiran waad mahadsantihiin dhammaantiinaba. Haddii aan u gudagalno bariiskeena iyo chickenkeena maanta waxyaalaha ay ka kooban yihiin ayaan idiin sharaxi doonaa insha Allah. Haddii aan ku bilowno dhanka bariiska iyo chickenka, maxaa la rabaa inaad soo diyaarsatid biryani masala, garlic powder, cusbo, huruud shiidan, barbarooni guduudan, 2 xabo oo liin dhanaan ah iyo 1 xabo oo maziwa mala. Intaas ayaa soo diyaarsanaysaa. Kadib waxaa sameynaysaa basal 3 xabo ayaa dabka saaraysaa. Basasha markay soo guduudato ay dahabi noqoto ayaad bixinaysaa, dhinac ayaad u dhiganaysaa. 3 xabo baradho ayaa soo qaadaysaa. Baradhadii rangi ayaad marsanaysaa. Saliid ayaad ku dhex tuuraysaa. Markay kasto ay soo yar karto ayadana waa ka bixinaysaa saliid, dhinaca u dhiganaysaa. Chickenka ayaa soo qaadanaysaa. Si fiican ayaad u nadiifinaysaa, waad soo dhaqaysaa. Qaybta lugaha ayaan isticmaalaynaa insha Allah. Marka qaybta lugaha ayaa soo qaadaysaa, si fiican ayaad u dhaqaysaa, u nadiifinaysaa. Baaquli ayaa ku soo ridanaysaa. Kadib xawaajiyaasha ayaan ku darsanaynaa. Huruud shiidan, biryani masalaga, huruud shiidan, cusbadii, barbaroonigii iyo liin dhanaantii aad soo miirtay iyo maalada. Intaas ayaa isku qasaysaa. Chickenka ayaa dhex gelinaysaa. Waad ku walwalaaqay si fiican markay isku dhex galaan. Dhinac ayaad u dhiganaysaa. Kadib saliid ayaa dabku celinaysaa. Waxaad ku daraysaa yaanyo 3 xabo ayaa soo shiidanaysaa. Waad ku darsanaysaa. Kadib waxaad isticmaalaysaa yaanyo shiid ayaduna 1 qaado ayaad ku daraysaa. Waad isku walaaqaysaa. Si fiican markay isku walaaqdo isku karto, chickenki iyo dhacaankiisa ayaad soo qaadaysaa. Waad ku gedinaysaa. Viazi iyo basashi oo horaan oo u soo shiishay ee dhinaca u dhigta aad soo qaadanaysaa. Waad ku daraysaa, waad isku walaaqaysaa. Kadib dabka ayaa saaraysaa, waad sugaysaa intay ka yar bislaanayso. 3 xabo ukun aad horaan u soo karisay ayaa soo qaadanaysaa. Ukuntii iyo daaniya aad ku daraysaa maraqi. Waad isku dabolaysaa 5 minutes camal. Waad ku sugaysaa. Kadib waad ka dhigaysaa. Marka maxaan u gudagalaynaa dhanka bariiska. Inta qof aad tihiin ayaad ku karsanaysaan bariiska. Nin walbaba tirada guriga ka kooban inaga garanaysiin inta koob aad rabtiin waad karsanaysaa. Laakiin aniga maanta waxaan idinka rabaa 4 koob. 4 koob oo bariis basmati biryani maxaa la dhahaye bariis ay nooc haysto waad ka karsan kartaa si fiican dad u hagaajisto bariiskaaga. Marka aniga maanta waxaan isticmaalaynaa basmati. 4 koob basmati ayaa soo qaadaysaa. Dhinaca u dhiganaysaa. Biyo dabka saaranaysaa. Maxaa dab saaranaysaa 4 koob oo biyo ah. Aad dabka saaraysaa. Kadib heel ayaad ku daraysaa iyo saliid yar. Biyihii markay isku buraan bariiska ayaa ku shubanaysaa. Hal mar ayaad walaaqaysaa. Bariiska mar walba hadaa walaaqtid wuu ka jajabaya, wuu ka halaabaya, uji ayuu ka noqonayaa. Marka bariiska in zaid loo walaaq lama rabo. Tartiib asaga u karaya. Dabkaad u gaabinaysaa. Dabka ayaa saaranaysaa. Markuu ku yar buro uu ku karo aragtid waxaa soo qaadaysaa food color ay 2 nooc ayaa soo qaadanaysaa si bariisku qurux ugu noqdo, kalar quruxsan uu kugu soo baxo. 2 kalar ayaa soo qaadanaysaa. Anaga maanta waxaan meeshan ku haysanaa 2 kalar oo jaalo ah iyo mid cagaar ah. 2 kalar ayaan isku isticmaalaynaa. Marka bariiska 2 kalar ayaa dhinac ugu shubaysaa, gees ugu kala shubaysaa. Isku ma daraysid, mana walaaqaysid. Marka ku shubtid waad isku hurinaysaa. Kadib dabka ayaa ka gaabinaysaa. Kadib markii u dambe ayaad miigaga u dhex marinaysaa, u walaaqaysaa. Marka bariiska kaal iska arag maasha Allah bariis qatar ayuu kugu soo baxay oo aad iyo aad u macaan badan. Chickenkana sida horaan aan kugu sheegay aad iyo aad ayuu macaan badan sida hada u karsatid waana ka heli doontaa adiga iyo asxaabtaada.
marti haday ku imaadan aad iyo aad bay ugu heli doonaan chickenkaaga insha Allah waa isku sheegi doonaa biryaniga waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan bariiskana saad u karsan doontaan mar walbaba martidana si wanaagsan aad u soo dhaweysaan insha Allah cunto aad iyo aad u macaan badan hadii laga barto aad baa lagu amaanayaa waxaan filayaa marka inaad ka faa'iideen waxaan soo bandhigay insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha igu xiran waxa aad rabtiin dhan comment-ka igu soo qora aan ka soo hadlo insha Allah maanta bariiskeena iyo chickenkeena halkaas ayuu noogu egyahay marka waxaan filayaa inaad ka faa'iideen insha Allah asxaabta igu xiran waxaan idinka baryayaa inaad channelkayga subscribe ii saartaan asxaabtaada iyo walaalahaada iyo aad la wadaagtid si ay dad badan ay u gaaraan ay ka faa'iidaan xaga comment-kana aad igu reebtid channelkana aan like garaysid aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhamaantiinaba intaan iyo inka badanba waan soo wada insha Allah waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan aad iyo aad ayaan iga mahadnaqayaa channelka subscribe iga ilaawina waa maalin wanaagsan oo wacan waxaan idin rajaynayaa qadam macaan oo aad u wanaagsan marka waxaan leeyahay chickenka iyo biryaniga hala soo tijaabiyo insha Allah waad ka heli doontaan waxyaalaha aan soo sharaxay iyo sida aan soo sharxay inaad u isticmaashaan isku daya sidaas iyo waxaan idinka tagayaa nabadgelyo aad iyo aad u mahadsantihiin dhamaantiinaba insha Allah wabillahi tawfiiq